and the most richest resources in country in the world ayaan ka imid ku dhashay ii baahan tahay walaalayaal intaas waxay ahayd marka intii ducaalahan iskaga dhicinayay waxaan rabaa khudbadeedii inaan hoos galo waxaa ii sharafa maanta inaan halkaan ka qayb galo waxaan idin leeyahay intii naan timid iga rumaysta waxaan la soo daahay oo igu wallaahiyo wiilkayga oo faleenba ku socoto Barrington Hospital ayaan uga soo tegey oo ka soo baxay oo ka soo tegey waxa kaliya aan uga imidna waxay tahay maantay waxaan idin arkaa inaad tihiin star baatiin xidigaatihiin xidiguhu ma iskaliya waxa weeye xidigu the star cannot shine without darkness waxa xidigu uu iftiimaa markii uu mugdi jiro markaas ayaa xidigu iftiimaa dadkii maanta siyaasiyiintii aakhiru sabanka ahayd ee ka wada dhuuntay ee ku hadli waayay karti iyo sharaf ay ku hadlaan si ay u helaan fiisa ay Kenya ku tagaan ama loobi looga galo ama ay Ethiopia u tagaan markay imaan waayeen intiina timid ama ha noqoto Copenhagen ama ha noqoto Los Angeles LA ama ha noqoto New York ama ha noqoto adinka waxaad diinistaan waxaad soo baxdeen waqtigii la idin baahnaa iftiin ayaa tihiin siyaasiyiintii aakhiru sabanka markay dalkayga iyo dadkayga ay dhiibtay intiina soo baxday waxaan idin leeyahay hambalyo tan labaad waxaan rabaa inaan la hadlo madaxweynaha Uhuru Kenyatta Soomaaliya iyo Kenya cadaawadu ma dhaxoolin laakiin waxaan kuu sheegayaa waxaa noo kiin dhacay Ingiriiska oon maanta taaganahay waxaa noo kiin dhacay European Unionka waxaa noo kiin dhacay Ethiopia dawladdii ka jirtay waxaan ku leenahay aabbaha waxa loo dhacay 1946 waxa loo dhacay markii waddankayga la kala gooyay Marsabit iyo Mooyaale iyo Wajeer iyo Gaarisa Marsabit iyo Mandheera inta u dhaxaysa ayaa loo dhacay maalintaas ayada awoodu wax ku dhaca ma lahayn nama soo hunguriyaysan karin waxaan challenge kula jirnay European Union waxaan ahayn dadkii ugu horeeyay ee lagu duqeeyay diyaaradda Ingiriiska challenge kula jirnay waxaan raadinaynaa xuquuqdii Afrikaanka waxaan ku leeyahay ha ku siganin ha ku kadsoomin maantay ood intaad haysato ood Wajeer ka heshay saliidii inuu damacaagu kuu geeyo Kismaayo iyo badda Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay usijaribu abana kayaga moto daba ku istaagin wewe fakeriya haddaadan fakerin ha isku dayin Kenya waa dad isfaloobar ah waa dad aad iyo aad u wanaagsan waxaan idiin sheegayaa ugaalidiinna ha isku qoonsanina Soomaaliya waxaad ogtihiin the most beautiful and the most waxa weeye ugu expensive party Nairobi Westgate saddex wiil baa haysatay adinkoo qaban buuna idinka tegey Soomaaliya waa saddexdaas wiil oo miiran al-shabaab waa 1% waad awoodi weydeen waxaan ku leeyahay don't time me on hay soo jeedinin I don't like to fight I'm a peace lover waxaan jecelahay nabadda ha isku dayin inaad soo jeediso taas waxaan uga baxayaa Kenya damacaagu waa inuu dib kuu celiyaa wallahi inaadan baddaan helayn inta wiilkayga Yoonis nool yahay inta Yaxya nool yahay inta milyoniska Soomaalida caruurteeda nool yihiin inta gabdhaha iyaga quruxda badan ee dahabka gadaya ee hadhowdii dhiibaya donationka aanu dagaalka ku kula galayna ay joogaan wallahi haddii maanta lagu xukumo there will be waxa weeye waxa furmaya wadadii dagaalka furmaysa waxaan ku leeyahay damaaci minki waxa weeye wadada ayuu ka luminaya waxaan rabaa inaan halkaan ka hadlo oo aan kala hadlo siyaasiyiinta aakhiru sabanka waxaan idin leeyahay kuwa maanta haya iyo kuwa raba inay madax noqdaan inaad madax ducaana hada la yimaado siyaasada hadii kale anaa wax kale ku qeeshino baahday war wallahi warina war midna kana waxaan qiyaynaa in adeero waxaan idin sheegayaa kuwa damacu ku jiro iyo kuwa maanta haya hoggaanka labadaba I got a message for you waxa horta ugu weyn madaxa laga dilaaye Xasan Meerow markii Meerowgu ooyay meesha qaadku ka baxo qabiilka dega ay ooyeen kii ka qaaday milyoniska Soomaalida dhagaysan waayana
maanta inaad dib isku soo sharaxdo adoo hablihii Soomaaliyeed Sacuudi Carabiya ka gaday adoo wiilashii Soomaaliyeed dhiigooda Yaman uga difaacay adigoo maanta dabadii furay oo ka raali noqday adigoo ugu dambeeyay qaadkii inta xiray haddana la yiri waaja laba jeer inta lagu dhiba tiri haye la yiri waxaan ku sheegayaa Soomaali ku dooran mayso kuma dooran doonto waxa jeer gareynaya Prime Minister ka Ethiopia Sheemediyu igad waxa sameeyay Soomaaliya almarxuum Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre sameeyay wuxuuna rabay sida ay maanta isticmaaleen inuu leader ugu noqdo Afrika wuuna ugu ahaa maanta waxaa noqotay raaciyad in ay kuwii Ilaahay diintiisu ka xarimtay the most beautiful woman in the world intaad soo bixisay inaad xalana ugu niikiyaan waxa weeye guralayaasha babuunka shame on you wallahi inaan lagu dooranayn wallahi inaadan tabax Soomaaliya kala hayn waliba waan ognahay shalay ugu dambeysay siyaasiyiinta inaad ku dilaysay siyaasiyiintii ugu dambeysay aad adigu meeshii qarax ka dhacaba aad siyaasiga ka soo horjeeda aad dilaysay oo qalaysay kuwa kale isqarinaya ee ay kamid yihiin raggii badda gatay ee raba maanta nagule anigu waxaan ahay rawaahu Bukhari iyo Muslim horta marka hore bal wax kalaba ha noo dambeeyeene raggii 2006 joogow raggii saxiixan bilaabayow Soomaaliya apology siiya raali gelin siiya qirta shacabka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay walaalayaal maanta waxaad u jeedin inaan gacanta ugu jirno oo aad arkaysiin maxishoodayaal baa u kacay magaca Soomaali madadaalo sheekiyo riyaal lagu marqaanshaay mana helo maslaxadu rabiya madax banaanaane madfaciya ninkii maal ku helay madax adeegtiisa Soomaali meeshay dhigeen ma hadda weeyaan waa niman macaansaday guddiga madiidile midnimada waxay dhaafsadeen maalin qadadeeda malaad iyo dalaal bay noqdeen magacayaal jaani waa wada muqarramiintii kufriga mana hanuunaan mana jiro mataalkeen dunida maanta saanahay badii moolka weyneed rag baa meeshay oo gaday macdantiya kalluunka ku jiray moolka baayacay maxlal baa dhulkeena in looga dhigay mixkamaareey waa Ethiopia mana arag mas'uulaan baryayn mooda waan dhihine malyan bay afkeenii bareen marag ma doontaay muslim iyo muraafiq baa la isku daray muudan iyo tuuge muqdisho dhax jiifaa maxar Michael iyo John intuu Maxamed muuday la baxay iyo muuna guursaday mana xidho midkaad garan jirteen maxatabkoodii waa macallin diintii la baray muftiya sheekh markaasuu shabaabka u yahay mahandiskoodii kuwaasa marjaca loo noqdiyo macallimiintii mufsidiinta caasiyay maxaa muumin loo qabay maxay naga shaqaysteen kufrigu maxay naga shaqaysteen kufrigu maxay nagu shaqaysteen kufrigu meel naga raacsi waxaan ku sheegayaa walaalayaal halkan waxa ku dhagan safaaradda Kenya safaaradda China ayaa ku dhagan waa laba lambar oo isku xigta waxa hor fadhiya mar walba waxa hor fadhiya nimankaas mudaharaadka ku wada hadduu baraf dhacayo iyo hadduu qabow dhacayo waa laf yar oo kamid ah China maalin walba waddankan 30 sano jooga 26 sano 27 sano waxay tahay ma qaana baan jooga safaaradooda maalin walba qabiilkaas yarka laf kamid ayaa hor fadhiya ballantayadu waa meel kasta oo Soomaaliya wax lagu dhibo oo ay ugu horeyso safaaradaha Kenya inaan hor barisano waa inaan qabowguna karin waa inaan dhaxaduna karin waa inaan qadiyada qadadoonka aan ku sifoobin waa inaan dalka iyaga ku halayn badla diibo waxaan la yiri abeesaduba way dhowrataa doobadii ciida ee ka dhammaanbay intaas dhaaf isleedahay haddaan bari wax loo dhigan wallahi gaajo loo dhimane ma dhammaan adduunka iyo ilmaha dhaxala loo reebo badla diibo nimasha karoon ilka la isdhigay dhulkeena dhigtadu ay dhaxtaal deemankiya luulku oo dunida noo dhaafi karin lagu dhamaynayso in loo dhaafo dhowr maafiya soo nadhibi mayso warma dhulka iyaga dadaan u dhiibnaan aragtay oo xukunkooda maanta u tartamaya ilaah baan idinku dhaarshay shacabka Soomaaliyeed dhulka iyagu dhowraya ee qurba joogta shacabka gudaha ku jira dhiman ee diban ee hiidka iyo xabadda iyo qaruq haysta adinku idin dhowraya adinkaa la rabaa maanta oo kale marka dhibku yimaado ayaa ummadda leadership ka soo dhaxdasha leadershipkii waxa la rabaa inuu idinka dhex yimaado adinkaa waxa la idin rabaa inaad maanta ka dhiidhisiin adinkaa waxa la rabaa inaad soo dhicisiin dhulkayaga adinkaa maanta waxa la rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo dhulka adinkay idin martiyihiin dadku wuxuu kala ahaa qurba joog iyo qaran jiro dalka dadka ku haray waa qaran jiro qurba joogga maanta waxa laga rabaa
inay hay-ada inay samaystaan axsaab inay samaystaan inay xisbiya samaystaan inay isku yimaadaan inay waxa weeye dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda u hiliyaan ayaa la rabaa maanta Soomaaliya Ethiopia waxa ku bilaabatay washamsigii annaga shalana haystay waa la socotiin sidaad la socotiin Ethiopia ilaahay ha u soo dedejiyo wixii dhibaataha islaamka mooyee intooda kale waxaad la socotiin walaalayaal Ethiopia waxa ugu weyn 4 qabiilood qabiilka ugu weyn waxa la yiraahdaa Oromo kan kale ku xiga waxa la yiraahdaa Amharo kan kale ku xiga waxa la yiraahdaa Uraago iyo Soomaalida hadda Soomaalida dadka Soomaalida oo la yiraahdo waxa weeye Soomaali galbeed ee aabayaasheen ay u dhinteen walaalaheen u dhinteen iyo Tigreega yarka ayaa ugu weyn shantaas marka Soomaali laga reebo waa 4 saddexdii kale Amharo iyo Oromo iyo Uraaga ay ku jiraan waa موتي سببت وحسن شيخ وقدقي شكشكا وقدقي صدح وح أيي لحين صدح مصور أيي لحين كو إن صدح ذا قبيلة هو وين إيه أمحارو إيه أورمو إيه أوراقنا إلا يرادو إلا تريا حداد هيستين أنا قلنا الصومالي أنا هيسنا جيسياشي مقنبضياشاها أيان هيسنا markaas waliba lagu jeesjeesay markaas waliba maqirtu yiri aniga xasuumaadu igama iman inay kii Soomaaliga xataa libta ma siin Ethiopia gaalki gaalada ugu weynaa ee prime minister ku yiri ayaa isoo xasuumay waa number 1 number 2 waxay ahayd hadalka madaxweynuhu waa dikreetay inuu dhiibo dhulkayaga number 3 waxay ahayd message la rabo in la xaqiijiyo laguna faa'iideysto maadaama uu soo noqosho rabo inuu yiraahdo I will do everything for Ethiopia وحول بإثيوبيا وأوسمينا يا مسج كساس وها وحلا إذا كربها مركا ولا لا سومالي هذا هدي شيلابة شلالك لقى هلي هدي قارسة لقى هلي شلالك هدي دوك يجي شلنا لقى دحية وشدنا لقى دحية هذا دوقاتين ما أنت وحلا إذا كربها إلى ويلكي نسيدنا لقوه سنوين أبياشن ما أنت أسوح إلى هاي قيل سببت تاي إيطالياني يا فرنسيس يا إنجليز بدينا oo Ethiopia u gacan qabtay ka yara waa iska horeyso maama yeetu iyo ugaali bay ku sii jeedeen iyaga badda kuma jirinba loola ka hadday soo gashay markay aragtay meeynadeeda dabaacigu soo galay laakiin waxa iskaga jireen bondolo maxdeeda bataan waa afliinkaana ayaa u dhageystaan ee habeenka sabtiga xadda ay shitaan waa dabada ruux iyo bondolo waxaasay ku sii jeedeen siyaasad loo la keeshaqa kuma lahayn niman biis loo faray ahaayeen markay arkeen Soomaalidu sayeen ba damac soo galay awoowayaashan markay Ethiopia waxay u arkayeen way guursanayeen Talyaani iyo Faransiis iyo Ingiriis baa uga daraa bannaankay dhigan waa la socotiin British Library-ga hadda labada tilaabo idin jira ayaa qiray wixii aan anagu aan ahayn markaas ayaa waxa weeye ninka Soomaaliga ah maalintaas uu ka hadlayay muxuu lahaa ميكروفون خلي لها هذا مناك وتاعنا وردنا الرجال قولي الدحالي واحد وحيقول درته نض وحيقول درته هذا ياشي مال انت تشوفه ولا ليال وحيدهن الله يوادو يدا مركي طلياني هي فرنسيس هي انجليز اي دغا كدفتين ee maalintii dambe diyaaradda loola yimid ee ay dhaqayso qoomaadin duulaya qadan ka soo dagay adigu ba aqla leedahay qaran maxaa dhaama markii uu Britishku Asia iyo Africa markii ugu horeyso diyaarad lagu garaaco ay dhacday diyaaradii loola yimid ayaa walaalayaal odayaasheedii waxay tiriyeen gabayadan halgamaagiina la dilay Sheekh Bashiir la dilay halgamaayadeedii la waxayay way ogaayeen inay tan u dhacayso way ogay الله يودو يدا مركات تاكتي ودبكيدا أما هذا بورتي خلقي هذا يحاو ما نتو إسلام كنكو في أيديدا يا مركاga إمكي أيان تاسمحا بلا ديغيسي إننا كان أوروبا سيدي أورتا نور راني واقي إفتيما بكم بانا نلقاها ساي بالقبصو وقادي سيدي أريقا وياني إيدا سيسا هدي دامتينا كيدا أفريكا دا إلهو محال لقا أبوراي أفريكا دمبا يوحليين أفريكا دا إلهو محال لقا أبوراي الله يو أود يا محاضرات وقديتي إنجليز رجوا لا يبان قدير لو بينه أحمد قري ونوك يشرنيه لواين سيد كيادون سجنا مع آخر وتجي عمر نوا ودوكتي روم طلاق ذي الشيخ بشير بيدران راح يجوين محمود سيدي الله أرجوي أمس لقى قاضي وأخويا أمحار هي الدقات
ومن نقبي ولقوا إثيوبيا أيها يوريبيا كوا إنه قد يجري وكيل متصرفة ما أنت يا شرفة ولقوا أيها نودي بيجري أيها نقبي بيجري وكويا مهاري الدقاق ومن نقبي استعماركم أو دور ربيع أو دعوة تاني ما يلدحكوي عن لهوي